Falkii uu sameeyay Luis Suarez koobkii adduunka ee 2014 ayaa weli ku jira xusuusta ciyaaryahanada iyo taageerayaasha kubadda cagta, waxaana dhacdada ugu weyn ay ahayd inuu garabka ka qaniinay daafaca xulka qaranka Talyaaniga intii uu socday tartankii koobka adduunka ee Brazil ka dhacay sanadii 2014. Inkastoo laga joogo muddo 4 sannadood waqtigii uu arrinkaasi ku kacay, haddana waxay dad badani isweydiin doonaan inuu mar kale ku kici doono falkaasi oo kale ee uu horey ugu mutaystay 3 ganaax. Waqtigii uu joogay Ajax ayuu qaniinay ciyaartoy, kadib waqtigii Liverpool ayuu gacanta ka goostay daafaca Chelsea kahor inta uusan daafaca heer Talyaani garabka ka cantuugin. Daafaca xulka qaranka Ruushka ee Kutubov ayaa ka hadlay waxa uu ka filayo Suarez, waxa uuna digniin uga diray inuuna ka baqi doonin qaniinyadiisa ee uu isagu kaga horeyn doono haddii loo baahdo. Kutubov oo la filayo inuu lafdhabar u noqdo daafaca xulka qaranka Ruushka oo dalkoodu martigelinayo koobka adduunka, ayaa waxa uu isku sii diyaarinayaa ciyaarta Uruguay ee ka dhici doonta 25 Juun, isagoo ku ciyaari doona Samara kulanka ugu horeeya ee gruubka E. Kutubov oo ka hadlaya waxa uu ka yeeli doono Suarez ayaa waxa uu yidhi, miyaan ka baqayaa Suarez? Dabcan maya, haddii loo baahdo aniga ayaa qaniini doona. Difaaca birta ee ay isku halaynayaan dad badan oo Ruush ayaa waxa uu dareenkiisa isugu geyn doonaa Mohamed Salah, oo aaminsan yahay inuu ka khatar badan yahay Luis Suarez. Sida ballantu tahayna waxay Masar iyo Ruushku wada ciyaari doonaan Juun 19 iyagoo ku ciyaari doona magaalada Petersburg. Miyay ciyaarta Salah warwar igu haysaa? Maya. Sideed u joojin kartaa? Sidii Sergio Ramos uu sameeyay, tusaale ahaanna waxa uu na tusiyay jid lagu joojin karo, ayuu yidhi isagoo sidoo kale caafimaad u rajeeyay Salah. Waan ku farxi doonaa haddii uu koobka adduunka ciyaaro. Marka aad la ciyaarayso ciyaartoy sidaasi u maskax badan, waad koraysaa, ayuu hadalkiisa ku sii daray. Ruushka ayaa ciyaarta furitaanka koobka adduunka ee Khamiista waxa uu la ciyaari doonaa Sacuudi Carabiya, waxayna isku haleeli doonaan garoonka weyn ee lagu furi doono ciyaaraha xafladda furitaanka ee koobka adduunka.